xarunta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda ee loo yaqaan Punjab waxa ay soo bandhigtay in la afjaray gudniinka gabdhaha ama no FGM degmada Burtinle iyo deegaamadeeda 10kii bishii 10aad 2014 wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan marwada madaxweynaha dowladda Puntland iyo wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ayaa soo gaaray degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaana ujeedka socdaalka wafdigu ahaa kormeerka dabargoynta gudniinka gabdhaha ama FGM-ka maadaama ay degmada Burtinle ka mid tahay saddexdii degmo ee ugu horeeyay Puntland oo ku guuleystay barnaamijka no FGM oo ahaa mashruuc ay iska kaashanayaan wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska hay'adda UNFPA Punjab iyo xarunta haweenka Nasteex Burtinle oo ahayd halka barnaamijkan lagu qabtay agaasimaha xarunta haweenka Nasteex Burtinle Xaawo Muuse ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen baahinta barnaamijka no FGM marka haddana waa markii saddexaad ee anisa ay timaado xarunta Nasteex aad ugu soo dhawow waan ku leenahay haddana marwada madaxweynaha soo dhaweynayna maanta ayagana soo dhaweynayna ku soo dhawaada xarunta Nasteex oo ah xarun aad iyo aad haweenka u danaysa in intii maxay tababarka ay ka shaqeynaysay hawlaha dumarka ardayda ay hayso ama subax iyo galab dhigtana waa maxay ahayd arday dugsiga sare ilaahay jaamacad gaaray haddana dadka waaweyn maxay ahayd baa kamid yihiin haweenkan fadhiya meesha oo wax barta oo ku loo qabtay barnaamijka FGM-kiina ama shaqooyinka dumarkuna aad iyo aad ayay meel gabaabsi u marayaan waana dhammaadeen baan isleenahay xoogaa dabariixa haray oo dhamaystir ah dhinaca kale qaar ka mid ah dumarka ka faa'iideystay tababarka ka hortagga tacaddiga haweenka ayaa wafdiga ugu warbixiyay halka ay marayso wacyigelinta ay wadeen FGM-kan ama kasoo horjeedka mashruucan waxaanu ahayn dad badan oo ka qayb galay ama tababarkii loo furay oo loo qabtay baanu ahayn aad baanu wacyigelintii magaalada uga wadnay iyo agagaarkeeda waana ku guulaysanay oo waxay noqotay calaamad ku cad jahliga iyo magaranaysaa aqoon darrada wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland Anise Xaaji Muumin iyo marwada madaxweynaha dowladda Puntland Dictoraysa Hodan Ciise ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda sidoo kale waxa ay dhammaan shacabka degmada Burtinle ugu hambalyeeyeen sida isku duubnida ay u qaateen ka hortagga tacaddiga haweenka soo dhaweyseen dabcan waxaan jeclahay marwada oo hadda dalshiraha noo ayana inay wax ka tiraado oo halka ku soo dhaweeyay iyana insha Allah halka ka ambaqaadno arintan aan maanta u nimi oo ah ila cidib tiro gudniinka gabdhaha gudniinka hablaha ee xaaraanta ah sida ay wasiiradu sheegtay anagu dhaqan la diineeyay dhaqan laga dhigay diin ma raacayno laakiin waxaan qaadanaynaa diinteena waa ka soo horjeedaa inta caddi qof bini'aadan loo geysto si kasta loo eegaba marka anaga shaqadayadii oo dhan kuma soo koobmin arrintan waxay noqotay arrin baaxsan oo ballaaran oo dhaqan adag oo si loo cidib tiro la garan waayay marka waxay ugu noqonaysaa inagoo dhan wasiiradeena maamooyinkeena gudoomiyaasheena gabdheena iyo ragga haweenkaba intuba inay guntadaan arrintaa la cidib tiro waxaad reer Puntland dadka kaga fiican tihiin maanta raggiina baa idin garab fadhiya oo arrintii gudniinka ka soo horjeeday idinla garab taagan marka intaas waa horumar inta kale waxaa la idin doortay Puntland oo ka kooban 9 gobol iyo degmooyin badan waxaad ku nasiibsateen oo idinku aad arrinaa kasbateen tahay inaad noqotaan saddexdii degmo oo ugu horeeyay oo ku dhawaaqay gudniin gabdheed ma jiri karo waa in la cidhib tiro no FGM dhinaca kale waxaa muddo 2 maalmood ah degmada Burtinle maansheeyay roobabkii guga xilli ay dadka iyo xooluhu aad ula liiteen abaaro ku daba dheeraaday guleed saajid jaamac warbaahinta dowladda Puntland magaalada Burtinle